kaalinta tobanaad Frankfurt International Airport sanadkii waxaa isticmaashay 61 milyan oo rakaab ah wuxuuna ku yaalaa wadanka Jarmalka. 9 Heathrow International Airport Heathrow sanadkii waxaa isticmaashay 75 milyan oo rakaab ah wuxuuna ku yaalaa dalka Ingiriiska. 8 Zurich International Airport Zurich sanadkii waxaa isticmaashay 27.7 milyan oo rakaab ah wuxuuna ku yaalaa dalka Switzerland. 7 Central Japan International Airport Central Japan sanadkii waxaa isticmaashay 9.8 milyan oo rakaab ah wuxuuna ku yaalaa dalka Japan. 6 Hamad International Airport Hamad International Airport sanadkii waxaa isticmaashay 30 milyan oo rakaab ah wuxuuna ku yaalaa dalka Qatar. 5 Hong Kong International Airport Hong Kong sanadkii waxaa isticmaashay 68.3 milyan oo rakaab ah. 4 Munich International Airport Munich sanadkii waxaa isticmaashay 42.3 milyan oo rakaab ah wuxuuna ku yaalaa dalka Jarmalka. 3 Incheon International Airport Incheon sanadkii waxaa isticmaashay 49.3 milyan oo rakaab ah wuxuuna ku yaalaa South Korea. Number 2 Tokyo Haneda International Airport Tokyo Haneda sanadkii waxaa isticmaashay 75.3 milyan oo rakaab ah wuxuuna ku yaalaa wadanka Japan. kaalinta koowaad waxaa galay Singapore Changi International Airport Singapore Changi sanadkii waxaa isticmaashay 55.4 milyan oo rakaab ah wuxuuna ku yaalaa dalka Singapore waana garoonka ugu qurxoon adduunka.